السلام عليكم dhamaantiin waan idin salaamay bacda almaqrib kadib waxaa loo fariisan doonaa daawashada kulan weyn oo Premier League ah kaas oo ay iskaga hor imaanayaan Manchester United iyo sidoo kale Chelsea. Old Trafford ayaa lagu ciyaari doonaa, hase ahaatee Manchester United waxay joogtaa kaalinta 13aad taas oo 3 gool lagu leeyahay 12 dhibcoodna soo qaadatay 9 game ee Premier League ay ciyaartay. Wareegii 10aadna waxay u fariisanaysaa Chelsea oo sanadan sidoo hore ka adag joogtana kaalinta 5aad haysatana 17 dhibcood iyo 7 gool. Chelsea haddii ay soo badiso waxay soo fariisan doontaa kaalinta 3aad taas oo ka sare mari doonta Aston Villa iyo Arsenal iyo Nottingham Forest, waxayna ku soo biiri doonaan tartamayaasha Premier League. hase ahaatee 7 game ee ugu dambeysay markii laga reebo kii ugu dambeeyay Manchester United ma laga badin, waxay ahayd mid Chelsea ay badin weyday wax draw ku dhamaado iyo wax Manchester United ay badiso. kontii game ee ugu dambeysay ay labadan kooxood iska hor imaadaana 18 waxa badisay Manchester United halka 15 ay draw ku dhamaatay 17na Chelsea ay badisay. halkaas waxaa la isteeriyay hal badisa, hase ahaatee 5 game ee ugu dambeysay ay iska hor imaadaan 2 draw ayay ku dhamaatay halka 2 kulan Manchester United badisay hal kulanna Chelsea badisay. ma ilaawi doono kulankii ugu dambeeyay ee Stamford Bridge ka dhacay in Manchester United 4 madaxa laga soo galiyay oo ku soo dhamaatay ciyaartaas 4-3. haddaba kulankan waa kulan xiiso badan maadaama Manchester United oo Fernando Roy loo dhiibay iyo Chelsea oo joog sare ku soconaysa ay iska hor imaanayaan. 7 player ayaa ka dhaawacan Manchester United halka Chelsea ay ka dhaawacan tahay 1 player kaas oo aan dhaawac ahayn. hase ahaatee diiwaanka markii la kala gadanayay labadan koox Sancho ay kala gadanayeen inuusan laga hor imaan karin heshiiskii ay ku soo dareen Manchester United. hase ahaatee Manchester United 7 ayaa ka dhaawaca iyo sida Anthony, Maguire iyo Yoro ragga ugu waaweyn yihiin. haddaba isku day saadaalinta kulankan waa kulan kale oo xiisihiisu heer sare yahay maadaama 2 kooxood oo top 6 ah ay iska hor imaanayaan. ogowna Chelsea way ku dhiban tahay Old Trafford, taas in ay ku soo badiso waa hore ayaa ugu dambeysay. Bournemouth iyo Nottingham Forest iyo Leeds kooxaha yararka ayaa ku badinaya, laakiin Chelsea marka ay ku ciyaarayso Old Trafford waa mid adeeg ka batay oo xitaa dhulku u diiday Chelsea. haddaba saadaalinta isku day dhamaantiin waa mahadsantihiin. haddaad ku cusub tahay Play Sports ku soo biir oo ka mid noqo bahweynta aan halkan ku soo xidhnay. dhamaantiin waa mahadsantihiin mar kale.